first generation American ah oo ilmaheen hadda laga hadlayo caawa ka midka ah waa dadka ugu dambi hooseeya marka la fiiriyo dadka ugu dambiga yar weey oo macnaheedu ma ahan inay tahay wax la soo wada maray oo qaxooti kasta soo mara oo markii ay first generation Soomaalidkii marka haduu ka yimaaday Afrika ama wadan burbur oo dagaal ah kaas ayaa wuxuu u geysanaa dhibaato badan marka ilmihii generationkii soo baxay waxa ku imaanayo secondary trauma marka inuu gaank noqdo ama dad dilo ama wax sameeyo way la fududahay because waxa fududeynayo waxaan la yiraahdo PTSD kaas wuxuu keenaa in cunigi wax walba uu ku dhaqaaqo uu ku dareemo relief because already xanuun baahay xanuunkaas aan keenayo wuxuu yahay waxaan qabaa inuu yahay qoyska oo qoysaska burburaya furiinka aad ma ugu badan oo wax siin bala dadka ku kala tagayaan guurku aad u fudud hore la iska guursanayo oo waxba lagu heshiinay hadhowna aysan noloshii sii soconayn marka loo eego laakiin dadka waxa dab ilaa kuleelkiisa la arkay lagama leexdo dadku marka ma fahamsanayn waxyaabahaas la sheegaya inta badan oo ay ku adkayd inay gartaan oo dhowr qof oo maalin wadi timid oo tiri waxa ayaanti sheegaysi 2010 iyo 2011 baa muuqanaya baan ku iriiday markaan idin sheegay oo aan idin lahaa caruurtiina saa u tababara oo waxaas ku sameeya markaad eegayseen waxaad ila ekayday ma sanamkii quraanka lagu tilmaamay oo la yiri ku fiiranaya laakiin kuma jeedo mana waxaan sheegaya halkaas ka mareysay dadka hadda laakiin waa lagu baraarugay dhalinyarada hawlaha gaangiska ee bulshada inay ku biiraan oo ay ka qayb qaataan waxyaabaha dhiirigelinta oo ah ama sababayaba maxay tahay su'aashaas koobaad ku bilaabayaa marka in kooban oo annaga aan baa sheegi doonto kadib su'aalaha dambe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد دمان ولا ليال سود وهذا سلامة إسلام كان كل سلام السلام عليكم ورحمة الله مركز لبعض وحن في جماعة علنا يا وقت جينا قالقة نصيصين إن شاء الله وسوق كوبنا أو وقت جيني سديد هيد بعد ما يسنينا ما أنت كلن كان وحو دارين هاي discussion iyo talo wadaag iyo fikir aruurin mowduucan meesha ku qoran oo ah youthka iyo dhibaatooyinka haysta gobolkeenan annaga og in hadda caalamku uu dagaal iyo marxalad kala guur uu marayo meesha fiirsid dagaal uu ka socdo gobolka hadda aan joogno oo Minnesota dhalinyarteena ay culeysyo badan haystaan gaankaas iyo islaynta iyo daraagiska stateka hadda qodobada ugu dambeeyay soo saarayeen uu leeyahay samarkan ama xagaagan wuxuu noqon doonaa kan ugu daran xagga isdilka iyo dhibaatooyinka dhalinyaro yar oo kuwii hore oo gaanka ahaan jiray ka dabeecad duwan oo sabarbaanada ku nool oo kuwa farxaya dilka iyo dhibaatada ay isku sameynayaan dhibaatada ay ka sameynayaan meelo hore aysan uga dhici jirin oo xaflado school graduationno meelo aroosyo dhibaatada ay ka sameynayaan runtii waa arrimo aad iyo aad cajiib u ah kamaanta kulankaasaan isugu nimid xafiiskan waa xafiiskiinii waa Bayaan Research Center mar walba waxaan isku daynaa dhowrkii bilood inaan hal research soo saarno waxaa inoo dhaqan ahaan jirta markaan research bilaabeynaba inaan dad xula isugu yeerno oo data gathering sameyno fikradda ma aragtay in la aasaasaan kadibna researchigi sidaas aan u qorno kadibna aan soo saarno sidaas ahaan jirtay January waxaan bilownay research ku saaya opioidka iyo daraagiska ilaa 10 qof oo dad hadda meesha fadhiya kamid ah ay kamid yihiin baa fikirka nala dhisay researchiga waa dhameynay markaan dhameynay baan waxaan la wadaagnay qayb kamid ah Soomaalida booliska ah maadaama ay ayaga ku shaqul leeyihiin haddana waxaan la wadaagnay qayb kamid ah culimada iyo wadaadada haddana waxaan la wadaagnay asbuucii la soo dhaafay iskuulada Soomaalida oo jaartarada qayb kamid ah principaladooda markaas waxay nagu dareen fikirkan ah in maalmaha dambe iskuulaadka ay aad ugu soo bateen ciyaalka inay garaajuunada isku leynayaan oo
xabado isla dhacayaan daraagiska iyo gaankan iyo dhibkaana ay cilaaqo leeyihiin researchigan ay muhiim tahay in lagu biiriyo fikirka ama research cusub la sameeyo marka xafiisku arrinkaasu maaragtay guda galay runtii qaybtaas waxaa noo fadhiya Kennedy Didyare dhinacaan hadda taagayaan filayaa oo qaybta researchiga noo qaabilsan waa kaa Kennedy iyo guuleed oo dhinacaas fadhiya labadaas dhalinyarta ahba khayr laha siiye odayaal bay ka yihiin raggan kaloo meesha wada fadhiyana mid walba xafiiska bilowgiisii hore iyo asaaskiisii qayb buu ku leeyahay input badan bay dadkan kusoo wada dareen 4 sano aan jirnaba qaybaad ka aheedeen marka waa idinkaga mahadcelinaynaa mar labaad maanta insha allahu tacaala kulankeena wuxuu ahaanayaa markii backgroundka laga yimaado su-aalaha dambe oo bejka dambe ku jira inaan isweydiino kadibna aan qaybino hadalka qof kasta uu taladiisa ku darsado annagana noodkaas aan qoranno oo dhowtina aan ku darno insha allahu tacaala researchiga aan soo saarayno jalsadan waxaa noo maamuli doona hadduu alla idmo sheekh maxamuud dulyadayn isagaan u dhiibaya aan jeclahay inuu microfonka qaato walaalahana uu maaragtay u qaabeeyo hadallada u qaybiyo waana jalse aan wada wadaagno duubistan baybarka soo baxana kulligiin waxaa ku wada leedihiin magacii iyo sumcaddii iyo waana xog idinka idinka timid waxaana la jooga dhakhaatiir qaybo ka mid ah sida ifraax iyo gabdhaha waa dhakhaatiir kor bay xafiis ku leeyihiin waxaana la fadhiya dad macallimiin ahoo muddo macallimiin soo ahaa sida injineer cabdi dheere oo kale waxaana la fadhiya dad dowladda xubno ka ah sida yaasiin oo kale waxaana la jooga dhalinyarta kuwa expert kuwa muddo la soo shaqeeyey oo runtii waddada iyo meel walbay taagan yihiinba ugu taga sida cabdiraxmaan mukhtaar oo kale iyo kulligiin waxaan leenahay soo dhowaada waa idinkaga mahadcelinaynaa imaatinkiina bismillahi raxmaan raxiim magacayga nuur qaasim aan salaamayaa dhammaantiin da ahaan baan fikirkayga kusoo jeedinaya laakiin aqoon aan inta halkaan fadhida wax ugu sheego layguma tirinayn waxaan u malaynayaa su-aashaas inay u baahan tahay haddaan su-aasha ugu horreysa jawaabteeda heli lahayn wax badan baan xallin kari lahayn soo markaan ogaano qofku hadduuna ogeynba inuu xanuunsan yahay dhakhtarka ma aadayo markaad og tahay inaad xanuunsan tahay oo aad dareentid baad dhakhtarka aadaysaa kabacdi baa barnaamijka xalkiisii la raadin karaa inaan horta isla fahano aynu ogaano oona isu nimidba in dhib jiro waa tilaabada koowaad dhibku muxuu yahay baa su-aashaas markaas ku socota say u eg tahay waa maxay dhibkaan hadda ina haysta haddii la fiiriyo dalka aan joogno waxaa lagu saleeyaa taariikhda si wax u dhacayeen iyo data dadka first generation american ah oo ilmaheena hadda laga hadlayo caawa ka midka ah waa dadka ugu dambi hooseeya marka la fiiriyo waa dadka ugu dambiga yar weeye oo micnaheedu ma ahan inay tahay wax lasoo wada maray oo qaxooti kastaa soo mara oo markii ay first generation inay dambiga galaan waa u fududahay ma ahano datada otherwise inoo sheegayso dadka first generation waa dadka ugu dambiga yar weeye waa dadka ugu shaqada badan waa dadka nolosha ugu guuleysta maraykanka sababtoo waalidkood waxay ka dhaxleen dalkan in shaqo loo yimid iyo maaragtay work ethics adag bay ka dhaxlaan marka ilmahani environmentigu uma keenin oo maadaama ay yihiin dadkii dalkan kow ku dhashay dhibku kaama ahan waa fahanay inaguna ma nihin dadka ka liito oo dembiga uga fudud taana waa eliminate garayn karnaa problemku marka muxuu yahay anigu waxaan qabaa inuu yahay qoyska oo qoysaska burburaya furiinka aada noogu badan oo wax siinbala dadka ku kala tegayaan guurku aada u fudud hore la iska guursanayo oo waxba lagu heshiinayo hadhowna aysan noloshii sii soconayn marka loo eego dalkan sidiisa furiinkiisa wuxuu marayaa 50% ka badan dadka 60% ma wada joogaan muddo dheer innaguna waa kasii sarreynaa waa ka badanna markii ilmihii aysan waalidkii wada noolayn qoyska loogu talagalay in 2 qof hogaamiso haddii maama ay la dhacdhacayso dhib baa imanaya taasi marka ma noqon karto dhibka ugu weyn oo kaliya ma noqon karto wax kale inay jiraan waa in la helaa waa khasab waxyaalo badan baa soo maray bulshadeena autismka ka mid ahaa oo aan weli aan xalkiisii iyo sababihiisii la helin maxaa inaga oon barkabita uga sarreynaa dadka kale weli wax nooga jawaabo ma hayno dhakhaatiirna waa fadhiyaan tana waa la mid waa inaan ogaanaa problemka ilmaheenu meesha uu ka yimid anigu markaa caqliga yarka markaan eegay waxa iila muuqataa oo iila eg tahay in uu dhibku ka yimid qoyskana wuxuu uga yimid
inagoo ka nimid qofka Soomaaliga hadduu xamar weyne ku dhashay hadduu xarar dheere ka yimid hadduu jariiban ka yimid baa qofku waa reemi dad bulsho reeb aadiyahan nahay xumaana ma ahana waxba ma ahana saa nolosheena asaas baan ahayn meel waxaan nimid naga duwan oo aan lahayn sideen aan looga shaqeynayn ilmaheeni marka saan u barbaarin lahayn sidii meeshaan ka nimid aan u barbaarinaan isku dayeynaa nolosheena ma shaqeynayso taasoo lagu daray iyadoo awalba noloshu adkeyd furiinka lagu daray haddii la xaliyo oo xal loo helo oo masaajidada iyo xarumaha iyo culimadu ay furaan saacado ay counseling oo ay kula taliyaan qoysasku intayna dumin muddo dhaweyd laga joogo wax yar baa waxaa la hadlayay laba qof oo is hayso waayeela marka ilmahooda markaan fiiriyay da-dooda fadwa waan bixiyo waxaan ku yidhi maba kala furantaan diintu ma qabtaan is furtaanba sababtoo maxaa dhacay waxaan ku culimada u tago soo weydiiyay laakiin anigu waxaan qabaa inaan is furi karinba soo furi kartaan sababtaan u irna waxa weeye ilmahooda ilma dhalay marka weysada la isku dhuurtaa maxaa la is furtaa isma qabtaan marka furiinka way dambi ka galayaan marka waxaan qabaa in soo koobe inay bulshadeenu loo baahan yahay in la eego qoys ahaan saan u noolnahay in la eego oo qoyska haddii la saxo wax weyn inay saxmi doonaan baan qabaa ten researchka Sheekh Shucayb iyo kooxdiisa khayrlahaas iyo waxaan kula dardaarmi lahaa aad ba u fiican lahayd in la booqdo dadka ilmaha dambiyada galada xiran marka ilma dilo laba dhibaa dhacay ilma dhintay qoys baa barooranaya qoysna ilmaha ka dhintay oo xabsi ka aaday laba qoys baa marka barooranaysa mid waa dhibanay midna waa dambiile of course laakiin qoyska laftirkiisa hooyadaas laftirkeeda wiilkeedu xiran yahay ogaada ka dhintay bay la naxdintaa iyaduna oo ilmaha ka dhintay iyadana marka ilmaha inta loo tago haddii 2025 kaliya hadda nambarka dadka wax dilay oo xabsiyada ku jira access baa loo helaya waa laynoo ogolyahay haddii inta lasoo tago lasoo baaro oo 99% ay noqdaan ka warrama inay dhashay in hooyo single mother joogeen problemku arkayna markaas oo maaha dhaytada marka waxaan uga dawitay karnaa ilmahan u tagi karnaa ilmahan lasoo baaro lasoo qodo dhaytada meesha taalo loogu tago marka problemku waxaan ahaynaa dee waxaan u baahanahay inaan daawada helno waa fududaha marka assalaamu calaykum shukran aad u mahadsantahay nuur qaasim waxaan u dhiibayaa injineer cabdi dheere بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرنتان مالمها ردن آد باللوغة هدليي إنكستو أن هوري أبلاوي إن عن كهالله مينيسوتا لابا كوني طوانكي مركان أسلو قوري وموقنيسي أرنتان إني سوس عطو tarbiyada caruurta iyo sida loo barbaariyo si mustaqbalkooda uusan u kharimin qaarkiin waa laga yaabaa inaad daawateen maxamuudna waa ka helaysaan hadda ka hor aan duubnay 8 sano ka hor miya haddeer dadka cajalado marmar hadda waxaa la isu dirdiraa conventionka waagii la qaban jiray mu'tamarka lagu qaban jiray barbaarinta caruurta iyo badbaadintooda aan ka hadlay mana aha dadka inaan ka aragti dheerahay xoogaana waa ka daaweynahay waa ka ciro badanahay intooda badanna Mareykan waa uga soo horeeyay oo muslimiin hore oo intaan marayno ama wax ku dhow maray baan soo arkay oo horey u soo arkay iyadoon Soomaalidu imaan wadanka oo waxaan ku fakarayay tii ku dhacday dadkaas iyose ku dhicin waxyaabihii badankooda waa ka badbaadeen aakhirkii xal bay heleen xalka ay heleen intaysan annaga nagu dhicin halkii aan horay ka bilowno laakiin dadka waxa dab ilaa kuleylkiisa la arkay lagama leexdo dadku marka ma fahamsanayn waxyaabahaas la sheegaya inta badan oo way ku adkayd inay gartaan oo dhowr qof oo maalin wada ii timid oo tiri waxa yaanti sheegaysi 2010 iyo 2011 baa muuqanaya baan ku iriiday markaan idin sheegay oo aan idin lahaa caruurtiina saa u tababara oo waxaas ku sameeya markaad eegayseen waxaad ila ekaydeen ma sanamkii quraanka lagu tilmaamay oo la yiri ku fiiranaya laakiin kuma jeedo mana waxaan sheegayaa halkaas ka mareysay dadka hadda laakiin waa lagu baraarugay waana loo baahan yahay in la baraarugo mar walba waa laga daba tagi karaa marka haddii la soo koobo waxa weeye kanoo kale hadda de barnaamijkii tarbiyooyinka iyo wixii oo dhan hadda laguma sheegi karo oo waa points badan oo u baahan waqti dheer
in la geliyo laakiin waa wax loo diyaarin karo dadka oo loo samayn karo laakiin waxaan horta intaysan dhicin in laga hortago wey kow hadday dhacdo maxaa laga qaban karaa wey iyadana ila waaba dhacday maxay u dhaceen lama dhihi karo marka way dhacday dhibtii waa jirtaa marka waxyaabaha ugu waaweyn oo koosgar hal wax keliya maaha waxa arrinta keenaya labana ma aha saddexna ma aha wax fudud oo dadkoo dhan way sheegi karaanna ma aha anigu haddaan dhaho tarbiyada carruurta dadka u sheegaya kaamil ma aha waxbaa ka maqan mana qoys walba dhibta haysta way ka gedisan tahay qoyska kale mana dadku way kala gedisan yihiin fikradahana waa sidoo kale oo anigu fikradda iga maqan adiga haya adiga ta kaa maqan gabadha haysa waa saas in la isu tago oo la kala faa'iidaysto weeye laakiin waxyaabaha muuqanaya oo hadda uu sheegay walaalkeen oo burburka qoyska waa iska muuqataa burburka qoyska waa qayb weyn waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay laakiin waxaa ka sii horeeya ilmaha barbaarintooda xataa qoysku markay wada joogaan way ka khaldan tahay soomaalida khaladka koowaad ma raba inaan kusii dheeraade khaladka koowaad waxaa weeye af soomaali bari mayaan bal u fiirsada maxaa iska galay gaangis iyo af soomaali baa laga yaabaa dadku inay dhahaan wax weyn baa iska galay oo aad u weyn baa iska galay hooyadii iyo ilmahay dhashay isku af ma aha oo isku laqad kuma hadlaan aabbihii iyo ilmuhu dhalana isku af ma aha isma af garan karaan af soomaaliga baa tarbiyada iyo akhlaaqda iyo dhaqanku afku ku jira uma gudbin kartid dadkan hadda maraykanka caddaan madow waxay rabaan ha noqdeen waalidkood bay wax ka dhaxlaan wixii waalidkood ay ka dhaxleen baa ka muuqanaya annagana sidoo kale wey waalidkeen waxaan ka dhaxalnay afkooday nagu bareen ficilna way nagu bareen iyo ficilkooda labadaba way nagu bareen marka afka kow halkaasaa cilada koowaad waxay ka bilaabanaysaa hooyadii iyo aabbihii oo ilmahoodii oo guriga jooga aan af soomaali kula hadlayn oo ingiriis jajaban ama ingiriis fiicanba kuu raba ha noqdee marka kow waxa weye cilada kow halkaasay ka bilaabanaysa tan labaad waxaa weeye waalidku markay soo qaxeen oo halkaan yimaadeen shaqadooda inay dhammaatay bay moodeen ilmihii guray dejiyeen xabaddii waa ka soo fogeeyeen cunnay siiyeen dhar fiicanna waa u gadeen iskuulna waa geeyeen isbitaal caafimaad kaar lagu siiyana waa keeneen bas shaqadooda inay dhammaatay bay moodayeen markii hore hadday waxay ogaadeen shaqadii ugu darnayd inay u taallo bay ogaadeen oo shaqadooda kow iyo labo inaysan joogin bay ogaadeen marka waalidka baraarugiisana waa wax meesha ku jira baraarugaas baa af soomaaliga haddana mar walba u noqonaysa af soomaaliga dhaqanka caruurta dhaqankaaga iyo afka inaa u gudbisid sheekooyinka iyo caruurta iyo waalidku wuxuu samayn jiray waagay yaraayeen markaa carruurta uga sheekeynaysid casharay ka qaadanayaan way duubayaan casharay ka qaadanayaan saasaan samayn jirnay meeshaan deganaa waxaasaa ka dhici jiray awowgay waxaasuu ii sheegay hooyaday saasay igu tiri baad dhahaysaa soo maa sheekooyinka kale oo carruurta loo sheego oo dhurwaabaa saas yiri waxaas aad libaax baa saas yiri aad leedahay casharaa ku jira duruus baa ku jirta waxaasoo dhan uma gudbin karta carruurtii marka dad isla nool baa tihiin oo guri wada degan laakiin qoys ma tihidin ma roommates hadda ka hor mana casharka waa kusoo dari jiray parentinka mararka qaarkood oo 9 jir wiil ah oo dukaan shay uu ka qaatay baa lagu qabtay markaasaa maxkamadda juvenileka la geeyey marka hooyadii baa cunugii wuxuu yidhi aniga waa u baahnaa shaygan hadde miyaad iibsatay maya maxaa u qaadatay ma garanayo yidhi waa u baahnaa hooyadaa la yidhi cunuga mawaadan barin tuugada iyo xumaanteeda iyo hadduu dembi galo dhibaataday u geysanayso mustaqbalkiisa miyaadan barin shayga hadduusan iibsan inuusan qaadan karin ma barin oo maxaa u bari weydi jajkii waa ku yiri markaasay tiri de ingiriis buu yaqaanaa anna ingiriis ma aqaan marka ciladaas waa midda ugu daran wey kow midda labaad waxaa weye mid mar walba dadkaan u sheega waxaa weye ilmahaaga 2 sano markuu jiro fariisa haddaa dhahdid oo u fariisan waayo bal u fiirsada soomaalida oo dhan dadku markaan sheego waxay u qabaan wax aan serious ahayn ilmahaaga 2 sano markuu jiro oo fariisa dhahdo uu fariisan waayo 12 markuu jiro gangs buu noqonaya wuxuu doonuuna samaynaya warkaagana maqli mayo mana waxay soomaalidu u yiraahdeen wiil hadduu 12 jiro lali ahaan waayo raganimo luddiis kuma jirtee liiciyay ogaada ilmaha marka 2 jir haddaad tarbiyada kaga soo bilaabin oo 12 ku gaaro tarbiya xumo soomaalida anigu intaan aqaan 99% ama ka badan ilmahooda fariiso hadday dhahan ma fariisin karaan
hadduu laba jirka hadduu cararo oo soo noqo dhahaan soo ma soo celin karaan sababtu maxaa weeye waysa barin qaab loo baraa jira ilmaha tarbiyadaas ma ay barin waxyaabo badan oo dee halkaad laguma soo koobi karo oo waxaa jira ilmaha laga rabo ilmuhu inta yar yihiin wey markay weyn yihiin hadday meeshaas aadaan maxaa la qaban karaa wey sheekadu taas iyadoona dee casharo gaara iyo seminaaro gaar ay u baahan tahay wuu fakaday cunugii dhibaatooyin badan baa ka muuqday maxaa laga qaban karaa waxaa laga sharqamiyey hadda ilmaha suburbska inta soo duulaan inay wax qaribaan fikraddaas anigu xoogaa waa ka gedisanahay sababtoo ah kow markaan halkaan imid 2010 baan dad badanoon aqaan iyo masaajidda iyo meel walba waxaan ka iri soomaalidu ha ka guureen inner cityga adduunka nidaam baa jira ilaahay wax walba sunnu u sameeyey sunnada ilaahay ma bedeli kartid adiga maraykanka waxay yidhaahdeen qofka mustaqbalkiisa zibkoodkiisaa sheega qofka mustaqbalka waxa uu noqon doono zibkoodkiisaa sheega waa laga yaaba percentage inuu ka fakado oo soomaalidu ku yidhaahdaan hebelba halkaasuu ku koray sida riverside buu ku koray waa dhakhtar waaye iska dhaaf dhakhtarka boqolkiiba intee kuwii riverside ku koray boqolkiiba intee baa nolosha ka dhacay majority wey marka 2010 markaan imid wadaadada waxaan ku eriyay sheekh Shucayb iyo way og yihiin iyo Maxamuud iyo waxaan eriyay suburbskaas oo annagu aan dooranay aan dhulka iibsano masaajid aan ka dhisno muslimiinta horatay ku badbaadeen wey oo naga soo horeeyay oo 80 sano 70 sano 60 sano joog waxay sameeyeen New York City iyo Newark New Jersey iyo Trenton New Jersey meelihii khatarka ah way ka guureen masaajidiyay meelo waxay ka samaysteen dadku waxba isku darsanaynba oo qofka cadaanka gurigiisu jooga adna gurigaaga joogtaa waxba isku darsan maysaan bay degeen sidaasoo kale aan samaynaa 2010 waa suuroobi weydii inaan ka dhaadhiciyo hadda markay u yaaceen suburbska waa too late ilmiyo faraha ka baxay oon tarbiya lahayn oo akhlaaqdii ka luntay oo wax qaribaya oo magaalada laga joogi la ayaa suburb geenaysaa soo maha kii suburbska xoogaagii yaraayo awal suburbska aaday oo fiicnaa uu ka fakaday waxaan buu qaribay markaasuu soo watay ilaa waa isnaqaanaay iyagii buu soo wato gaangis ka dhigay hadda xabsiyadaa laga hadlayay anugu halkan kow markaan imid waxaa laygu yidhi 4,000 iyo dhowr boqol baa xabsiga ku jirta markaasaa irsee ku ogaateen soomaalidu markay doonaan waxay rabaan ba iska sheegaan markaasaa la yidhi kombyuutarka ku jirtaa websiteka maxkamadda markaasaa iri maxkamadda samadaan iri ninkii ilahaa baan iri adiga magacaa hebel weligaa ticket ma qaadatay ha buu yidhi parking ticket driving ticket markaasaan ka soo saaray waxaan u soo saaray maxkamadda inuu ku jiro asagu magaciisa adigu miyaad xiran tahay may hadda markii ticket lagu siiyo ticketka sidii Soomaaliya iyo ganaax lacaga ma ahay waa summons maxkamadda lagaaga yaaray weeye Soomaa maxkamad qof looga yaaray dambi baa loo haysaa Soomaa marka 4,000 anigu marka waa baaray 2010 marka waa baaray xabsiyadan tagay halkan New Jersey by the way xabsiyadan tagi jiray oo dacwo ka sameyn jiray 94 baan bilaabay xabsiyada inaan tago oo dadka muslimka iyo wixii doonayo aan muslim ahayn ba aan la hadalno waan bilaabay halkan waxaan isku dayay dhowr iyo 10 sano Soomaalida inaan ka dhaad horta waxaan ogaaday intaan idinkaga boodin xabsiyada markaan tagay Soomaalida xabsiyada ku jirtay 100 xataa ma dhamayn 2010 marka 100 ma dhamayn hadda waa ka badan yihiin 100 waa ogahay marka waxaan isku dayay in aan ka dhaadhiciyo Soomaalida dhalinyarada anigu waxay oday baan noqday mar dhaw ritaayaraya xabsiyada taga isu soo qoro volunteer waa lagu ogol yahay usbuucii hal maalin aad fiidkii ama 2 maalmood shaqada markaa ka soo baxday 5 galabnimo 6 galabnimo hal qof waa waay hadda hal nin oo Suudaani oo Woodbury ila degan Sheekh Maxamuud waa yaqaanaa oo waagaas isqoray iyo hal nin oo oday Soomaali ah oo dasna Woodbury nala degan baa taga xabsiga waxay tagaan Stillwater bay tagaan oo dadka muslimka iyo Soomaalida wax u akhriyaan hal nin oo Soomaali hadda ku jira marka waxyaabaha waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay hadda dadka maqla haddaba waad u baahan tihiin xabsiyada inaad tagtaan caruurtiina la hadashaan aad badbaadisaan meelaha ugu fiican oo qofka lagu soo toosiyo buu xabsigu noqon karaa hadday helaan waxay u baahnaayeen sababta waxaa weeye xabsiga qofka jooga wuu xaniban yahay meeluu aada male wax u sheekeeya iyo wax u yimaado soo booqduu rabaa waa captive audience weeye markaan buug u geeyo wiigadda markaan soo noqdo waa dhameeyey ku leeyihin buug saasay dhihi jireen markay dabadda joogeen waxba ma akhrisan jirin qofkii waxba uu baranayaaba asagoo scholar uu soo baxayaa haddii loo taga weeye haddaan loo teginna asagoo sidii ahaa ka liitu ka soo baxayaa xabsiga marka keligay ma rabin inaan wax qaato waa ku daahay raalli ahaada inta dambaa layga jari doonaa shida male
way wada fiicnaayeen qayb la jira lagu wareeri doonaa dabcan waxaan ka jawaabaynay su-aashii koowaad oo ahayd sababta iyo weliba asalka ay dhalinyaradu ugu lug yeeshaan ama ka dambeysa inay ku lug yeeshaan geenka iyo activityga noocaasa communityga dhalinyaradeeda maxay tahay maxaa keenay maxaa sababay maxaa dhiirigeliya haddii ay saas tahay waxaa ka jawaabay ilaa hadda 2 qof waqti dheerna waan qaadanay sidaas daraadeed maadaama sheekh Shucayb uu shaqo ii diray waxaan rabaa anna inaan shaqo u diro time inuu qabto maadaama uu telefoon u haysto si aan pointyada kali u aadno indhahno qodobadaas bay ka mid tahay because markii research la soo binayo u maleynaya intii hore way fiicnayd Google fiican bay ahayd inta dambe inay noo noqoto pointyo iyo qodobo biinile waxaan jeclahay maadaama ay 2 rag hadleen dhinaca gabdhahana inaan insha Allah aan siiyo su'aashaas koobaad kadibna su'aal walba maadaama su'aal ay badan yihiin 3 qof kaliya aan ku eegno maadaama waqtiga uu naciriirinayo dhakhtarada uu dhiibayaa السلام عليكم magacayga waa Dr. Ifrah I believe inay mataqaana arintaas caqabad ay ka taagan tahay wax la yiraahdo parenting style-ka ama qaabka waalidka uu u sameeysan yahay ama ilmaha uu korinayo naftirkiisa dabcan arin dheer waa kamana hadli karna hadda parenting style-ka waxyaalaha kamid ah waxaa kamid ah in ma aragtay waalidka naftirkiisa uu ku soo barbaaray dagaalo sokeeya oo trauma uu qaba asiga naftirkiisa traumadaas oo ilmaha u soo gudbinaya oo waxa la yiraahdaa secondary trauma soo waalidkii marka haduu ka yimaaday Afrika ama wadan burbur oo dagaal ah kaas ayaa wuxuu u geysanaa dhibaato badan marka ilmihii generationkii soo baxay waxa ku imaanayo secondary trauma marka inuu gaank noqdo ama dad dilo ama wax sameeyo way la fududahay because waxa fududeynayo waxaanu la yiraahdo PTSD kaas wuxuu keenaa in cunigi wax walba uu ku dhaqaaqo uu ku dareemo relief because already xanuun baa hay xanuunkaasana keenayo waxa kaloo kamid ah in ma aragtay horena looga hadlay divorce oo kale ama kala tagga waalidka ee kala tagaan qayb weyn oo ka qaadana because haduu aabihiis ka baxo waxa badan gaangiska noqdana wiilal bay u badan yihiin waxa keenayna waxa la yiraahdaa waxa jirto role model oo aabaha lahaay role modelka aabaha lahaay ayaa meesha ka baxay kaas waxa imaanayso in ilmihii uu san helin qof ku daysado qof wax badan kaga daysado even waxa la dhahaa markii la dhiganayo objective theory ma la dhahayo wax la jirto oo ilmaha markay dhashaan waxay u baahan yihiin relation kala dhaxeeyo waalidka relation kaasna wuxuu soo bilowdaa ilmaha markii caloosha ay ku beermaan marka hooyadii markuu ilmaha banaanka ugu soo baxo already mas'uuliyadeeda qayb weyn ah banaanka ka baxday haduu meel yahana way ka sii duwantay because wuxuu u baahan yahay markii uu baranayo ilmaha la barayo suuliga kale because ragga iyo dumarka way kala duwan yihiin dharka dressing sida loo xiranayo sida loo hadlayo wuxuu u baahan yahay qof uu kaga daysado marka waxa dhici karta waalidka inay kala tageen markii ilmihi hooyadii caloosha ku jiray soo ma helayo berito qof uu kaga daysado waxa u sii dheer intaas traumadii hooyo ee wadatay waxa u sii dheer traumadii environment-ga uga imaanayso oo jiraankii dhanba waxay yihiin dad oo trauma qabo soo marka waxa u baahanahay in arinta divorce-ga ama kala tagga qoysaska numberka aadka u badan horta la yareeyo lamba 2 in mataqaana qof walba oo Soomaali ah ma dhihi kara xataa qof walba Afrikaan because wadamo badan Afrikaan oo nala qabina jirto waxa u baahanahay wax la yiraahdo before the marriage-ka couple therapy wax la dhahayo oo gabadhii wiilka intaysan isguursanin ay ka niqaashaan ay ka taliyaan ay dhahaan yes sana u dhalin biri ilmo mental qabo ama maskaxiyan xanuunsan waxa kaloo jiro markii la isguursado kadib ilmaha markay dhashaan waxa jirto wax la barto oo la dhaho sidee loo korinaa ilmaha sidee loo kala korinaya sidee ugu badbaadnaa waalidka dictatorka oo kale oo dhahay like kana jiro in la sameeyo oo si u sameeyna waalid flexible ama democratic waxa kale u baahanahay inaanan kowkaana tagin culture-keena iyo diinteeni labadaas oon ka tagna ayaa waxay keeneen waxyaalo badan inay naga halaabaan dhaqankii oon ka tagnay diintii oo qaar badan aan ka tagnay afku ma muslimkana hana ma ahane really deep down muslimnimadeena hadii rafiisho wax badan aan ka qaldan abaya magacii waa Tarabi Jaamac dhakhtaradu dhinaca dhakhtarka ka eegtay balana dhinaca iskuuladan muddo la shaqeeyay inta dalaas 10 sano u dambeeyay
waxaan rabaa laba arrin oo aan isdhihi karo ama saddex shay inaan ka sheego. Arrinta role model kuma dheeraanayay, horey baa odagu u taabtay, gabadhana waa ka hadashay, dhakhtaradana waa ka hadashay. Muddada 11 sano aan public schoolska la joogay waxaan arkay waa farakutiris inta aan la kulmay aabe dabcan dee kulli ilmaha wada leedihiin baxoogeena iskuullada inta goor ilmaha lala kulmo ama waalidka hadduu noqon lahaa iskuulka marka la furayo ama marka la xirayo ama marka maaragtay heerka dhexe lagu jiro oo la rabo ilmaha maaragtay waxbarashadooda in la ogaado. marka haddii xataa aabbaha taleefonka kaa qabto wuxuu leeyahay wixii waxbarasho hooyadaa la socotee bal adigu hadda ma aha aabba aan africa aan kaleefiska waxay maaha waa qof jooga hadduu xataa taraag saaraya sibale wuxuu dhihi karaa khadkan kula hadlaya. marka xaggaas dhib badan baa ka taagan xagga aabbaha. anuu Soomaaliya iskuulka soo dhigtay welina youthkan ku jiraa laakiin aabba unbaa haddaan iskuulka goyno aabbana geyn jiray dharka isaga dhooso macnaha alisabal dhinacaas hadda markaa labadii shaqaba hooya haysa even hadduu xataa aabbihii uu joogo markaan waxaan ilaa bal dhinaca makhaayadaha walow anigu aan ku jiro dadka xataa fariista laakiin in iyadoo oo social gatheringkeena laga qaybgalayo haddana kulanka iskuullada in la badiyo taa waa mid ugu yaraan waxaa lala soconayaa cunugii trainkiiba ku jira taa waa mid. ka hadli maayo inta waalid ii yimaado cunug la ogaaday 12 sano cunug suuqa dhiganayo oo la gartay inuusan graduate garayn karinba laakiin subax walba canjeero la siiyo rooti la siiyo la soo taa waa hal qodob. labada qodob aan kale aan ku darayo waxa weeyaan ilmaha iskuulka saaqida ilmuhu markay ay ogaadaan inaysan graduate garayn karin based on credit-ka laga rabo by the time grade 11 ay marayaan ama 10 markay dhameeyaan cunug wuu garan karaa inuu xilliga loogu tala ku garayn karo iyo inuusan maaragtay graduate garayn karin oo marka ay khasab ku noqonayso qalin jibintii inuusan marka saaqido oo yiraahdo dan haddaadan high school dhamayn karin iyo ama certificate qaadan karin banaankan aadaya. ilmo badan oo saas annaga waa aragnay oo faraha ka qaada waxbarashadii oo ku biiray kooxaha sida khaaska u abaabulan. waxa kale oo iyadana hoosta in laga xariiqo u baahan ilmaha inay saaxiib la lahaanayaan jaaliyadaha kale Isbaanishka African Americanka oo anaga kaliya inaan isku koobnayn halkaasna marka drugskii iyo khamrigii iyo kaniiniyadii iyo xabadii iskuuladii ba la soo galaa ama masqulaha la galaa taana waa arrin ku saabsan marka saaxiibada biyada lagu noolina way keentaa anaga kaliya maaha. mid ugu dambaysa kaga baxay waxa weeyaan dhaqankii kale marka la qaatay dabcan waxa imaanay boyfriend girlfriend wiilashu waxay ku dagaalamaan gabdhaha la kala qaado anaga qolay ayaga iskuulada aad baa ula soconnaa oo hebel baa gabar iga qaaday waa graduation ku sugaya ama waa la dagaalamaya ama dhinacaynu hadda aad uguma baraarugsanin laakiin dee soo lama dhihin dariskaaga marna maxaa la jira marna ku diin marna ka darno ma ahayd marna ku dayo marka environmentiga aynu joognaa saa ah taana lagu xisaabtan waa qayb weyn oo xabadahan ka mid ah weliba hadda waxaan u maleeyaa ardayda jaamacadda ka dhacday qayb ka mid ah kaysaskaas baa ka mid ahaa. wax kaloo hadda aan kaga darayma afka odaga ka hadlay waxbarashada ADD-ga dhibka uu qabo waa laga hadlay oo ilmaha autism-ka ADD-ga intaba waa aragnaa marka inahaasan wax kaga dhigi lahaa odaga dhigi lahaa laba kelmaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وين سلامي. horta intii badnayd waa la sheegay laakiin waxaan rabaa inaan sheego ilmahena ay dhalinyaradeena inta badan mar walba waxaan ku bilaabaa in inta badan ay wanaagsan yihiin laakiin in tiro yar ah ay u baahan yihiin caawinaad iyo daryeel gaar ah iyo in laga warhayo guud ahaan waddankan aan joogno arrintan hadda mawduucan ka hadlayno youth violence-ga waddanka Mareykanka dhalinyarada da'doodu 10 sano ilaa 24 u dhaxayso waa sababta koobaad waa sababta saddexaad ee u dhintaan dalka Mareykanka guud ahaan laakiin dadka madow caruurteena ku jiraan waa sababta koobaad ee u dhintaan dhalinyarada da'daas jirta 10 ilaa 24 sano. dhalinyaradana marka laga hadlayo dadka gaar ahaan dhalinyarada la shaqeeya ama qeexitaanka la qeexo ilaa sanadka 25aad ay dhahaan qof dhalinyaro ah guud ahaan markay ka hadlayaan laakiin 10 sano ilaa 24 sano madowga Soomaalida ay ku jirto oo Laatiinaha ayna ku jirin sababta koobaad ee u dhintaan waa taas. Dhalinyaradeena waxa u dheer marka
oo ku xigta hadda isdilkiina ka tira badan arrimahan opioidka ka hadashay maandooriyaha macmalka ah ayaa sanadihii adigu 8 sano u dambeysay ka tira badnaaday maanta bisha June waa 22 guud ahaan waxaan iska dilnay 9 dhalinyaro ah ayaa la toogasho u dhintay sanadkan iyadoo weli aan la isgaarin waqtiga ugu badan ee la istoogtana waa waqtiga hadda lagu jiro iskuulada xirmaan maanta oo sabti ayuu samarka bilowdayba calendar ahaan waa dareemi kartaa marka saameynta ay leedahay culayska ay leedahay marka taas haddii ay jirto guud ahaan Soomaali ahaan dhalinyaradii anaga markuu horeysay qof dhalinyaro aan iska dilno 2007 ayay ahayd wiilkii u horeeyay aan iska toogan Allah u naxariisto dhalinyaro kale Soomaaliya ay dileen dhalinyarada hadda istooganaya ama loo qabtay dambiyada galaya waa dhalinyaradii dhashay 2007 ha 18 sano jira dhibaatada marka waxay tahay research ka hadda la sameynayo waxaan jeclaan lahaa Sheekh Shucayb inay ku daraan gobolka Minnesota guud ahaan sharciga qeexaya gangska ama kooxaha sababla waxay u qeexaan 3 qof iyo wixii ka badan ee dambi abaabulan sameeya ayay gangs dhahan laakiin sharcigaas haddana wuxuu ku daraa waa inay magac ama calaamad gaar ah lagu garto ay sameystaan markaas booliisku qofkaas waxay u aqoonsanayaan inay gang yihiin marka gangka dhalinyaradeen inta badan ama kooxaha way ka duwan tahay dalka Mareykanka sida gangska kale dambiyada u galaan inta badan waxa u badan yihiin caruur isku xaafad degan waagii hore waqti waxaan gaarnay xitaa magacyada ay la baxayaan magacyo qabiilo ku salaysan ee ahaayeen xaafadihii ay ka gudbeen laakiin hadda inta badan waa iska group magac la baxay oo rabaan dhalinyaro kale inay iska waabiyaan sidii structure-ka u ahaan jiray ama sidii uu nidaamsanaa kuwii hore aan naqaanay ma aha hadda waxaa la ogaan jiray sababta dhalinyarada isku maagaan ama argoosi wuxuu ahaan jiray sabab ay isku raadsan jireen hadda wax walba dambiyadu waxay ka dhacaan baraha bulshada online-ka ma ogid video waa la isku diraa heesaa la isku qaadaa kooxa waxaa jira kooxaha qaarkood waxay leeyihiin dad u heesa oo qolyaha kale fariin ugu dira heesahaas marka maadaama la sheegay duruufaha iyo waxa jira laakiin bi'ada koobaad dhibka koobaada wuxuu yahay waddanka Mareykanka haddii dhalinyaradiiba ay yihiin waxa koobaad u dhintaan sababta koobaad u dhintaan gun violence-ga ilmaheenuna waxay la mid yihiin taas laakiin waxa u dheer ilmaheena cidna uma maqna cilna uma qodna xaqiiqda marka laga hadlo waan ognahay arrintan way soo noqnoqotay markay waxa dhacaan ayaa la isku yimaadaa si laab la kac ah laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in bayaan iyo kulan loo fadhiyo la